قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال مسلمين اسكو دمقادان اساس كوغو دوبنادان عامده iyo culimada in isku xidhnaato dhalinyarada iyo odayadu in isku xidhnaadaan oo dadka muslimiintu ay noqdaan innamal mu'minuuna ikhwa ummad buu nabigu diyaariyay ummad ninka loo jiray qays ibn matatiya al-khazraji miskiidkii nabiga inuu soo galay alayhi salaam waa khazraji halka waxa fadhida ansaar aws khazraj muhaajiriin xalaqad wuxuu dul tagay bilaal iyo salmaan iyo camaar ay fadhiyaan markaasuu kuwa haddeeto la maxal looga baahan yahay buu kuwa ninku tolkii buu helay mucaad bin jabal baa ninkii halkaa qabtay war maxaa tidhi waan kaftamayna hadalkaana waan idhay markaasuu mucaad halkaa isagoo ayuu nabiga ninkii u geeyey sal lla alay slam markaasaa rasuulka wejigiisii bedilmay masaajidkuu soo galay mambarkuu fuulay saxaabadii oo dhan baa loo wada yeedhay khudbad buu nebigu bilaabo khudbad dheer maahayna khudbad gaaban bay ahayd wuxuu yidhi waryaada rabbigiinnu waa mid keliya buu yidhi diintiinnuna waa mid keliya carabiyadduna aabba iyo hooyeynima buu ka yidhi faman tacallamaha ninka luqada carabiyadda ku hadalkeega bartay waa carabi intaa markuu nebigu yidhi buu khudbaddii ka dhaadhacay mucaad binu jabal weli ninkii halkii buu hayaa kana nebi allow maxaad odhan buu ka yidhi kaa naarta u daa buu yidhi naartaa kaaga filan naarta u daa buu ka yidhi maalintii abubakar la doortay khilaafada loo doortay qabaa'ilkii ridoobay isagoo murtada ninkii la soo dilay waa kelmaddaa wuxuu diinta kaga baxay kelmad ummadda casabiyad iyo qabyaalad ku abuuraysa ayuu ku dhex tuuray masjidkii rasuulkeenna wuxuu yidhi kuwa maxaa looga baahan yahay haddeetol waa bilaal alxabashi salmaan alfarisi suhayb alruumi radia allahu canhum raggii diinta islaamka asaaska u ahaa ayuu ku leeyahay kuwa maxaa looga baahan yahay ninku tolkii buu helay haddeetole kelmadda uu yidhi baa ilaahay ninka raxmaddii kala noqday mar labaad oo diinta ilahay u ka qaaday